gudoomiyaha cusub ee xisbiga kulmiye ee gobolka saaxil maxamuud maxamed jaamac ayaa maanta xilkii kala wareegay gudoomiyihii hore ee xisbigaasi sacad cilmi guuleed xaflad ilyartu isqabatay oo lagu qabtay hoteelka suldaan ee magaalada berbera ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo maamulka dekedda berbera taageerayaasha xisbiga kulmiye iyo marti sharaf kaloo aad u tiro badan sidoo kale waxa iyaguna goobjoog ka ahaa sulaadiin iyo cuqaal marti sharaftii iyo mas-uuliyiintii weliba dadkii ka soo qayb galay xafladdaasi ayaa hadalladii ay ka jeediyeen xafladdaasi waxay ku ammaaneen gudoomiyihii hore ee xisbiga kulmiye ee gobolka saaxil sacad cilmi guuleed iyagoona gudoomiyaha cusubna soo dhoweeyey isla markaana ilaahay uga rajeeyey inuu xilkaasi ku asturo xafladeennan waxay daaran tahay saboontinka aynu sii sabootiyeyno guddoomiyaheenii hore ee qaali ahaa sacad cilmi guuleed iyo soo dhowaynta guddoomiyaheenna qaaliga ah maxamuud axmed dego labadaba waa laba nin oo gobolka saaxil oo xisbiga kulmiye ah mid waliba wuxuu qabtay iyo mayqaamkuu xisbiga gaadhsiiyey ayuunbaa lagu xusayaa maxamuudna wuu soo socdaa xisbiga halkiisii uu gaadhsiiyey sacadunbuu ka hamba qaadayaa waa nin aqoon-yahana labadooduba sala allahu calayhi wasalam dhammaantood way sharfan yihin xaggayga aniga sharaf bay ka yihin iyo dhammaanteenba muhiimaddu waxa weeyaan isbeddelka maaha xisbigu inuu jiro xisbigu inuu waaro xisbigu inuu guusha helo xisbigu inuu sii jiro intay isku keentay muhiimkii ee laga wada shaqaynayaa mid hore iyo mid dambaba arrinkaa weeyaan hadal badan odhan maayo waxaan tilmaamayaa xisbiga kulmiye inuu yahay xisbiyadan jira ka duwan waa xisbi muddo dheer la soo shirabayey ilaa 2002gii anigu mas-uulkii ugu da'da weynaa ama ugu taariikhda badnaa ee gobolka ayaan ahay waxaanu ka soo qaadnay meel hoose guddoomiyuhu ka dambeeyey halkii ku soo gaadhay saruu ka qaadayey waxaan aad u ammaanayaa guddoomiyahan iminka la beddelayo oo aan ku ammaanayo wuxuu yahay muddadii uu joogay sacad si xarraga leh oo wadad iskuwad leh oo karti leh ayuu uga soo shaqeeyey xisbiga ama mas-uuliyaddiisa u soo hayey xisbigu waxa uu ku jiray markii aan loo dhiibin sacad meel yar oo aan muuqanin xisbiga gudihiisu muu lahayno welfarnation muu ahayn uu ka shaqeeyey xisbiga gudihiisu waayo cod buu u doonayey inuu u keeno oo gobolka uga keeno dabadeed waxaa la yidhi hogaaguna uu kula baryo tagaa dabeed wuxuu ka bilaabay inuu qurxiyo xafiiska gudihiisii oo guddoomiyaha dhallinyarada ka haweenka ku-xigeenka xogayaa mid waliba xafiiskiisu welfarnation yahay ood ku soo hiranayso aad iyo aad baan ugu ammaanayaa muddaduu hayey dadaal dheeraaduu sameeyey markhaataan ka ahay waxaan isna aan leeyahay ilaahay xisbiga dekamaa tegine mas-uuliyaddiisu baynu ku dhex wareegaynaa marka waxaan u rajaynayaa in uu meel ka sii wanaagsan uu insha allah aanu geyno waxay misay maxamuud maxamed jaamac waan ammaanaya waxaan ku ammaanaya waa nin gobolka in badan joogay oo dhallinyarnimadiisa ku soo kacaamay wuxuu yaqaanaa bulsho fara badan oo magaalada ah inuu wax badan ku soo kordhin doono ayaan qabaa waayo horada bulshadu in badan ka soo shaqaynayey oo uu ku xidhan yahay dhallinyarada rag iyo haweenba marka waa nin karti badan oo aqoon-yahan ah oo akhlaaq wanaagsan aad iyo aad oon rajaynayaa inuu halkaas sacad u gaadhsiiyey uu isaguna gaadhsiin doono maanta waa maalin aynu sii sagootiyeyno guddoomiyaheenii xisbiga kulmiye hore guddoomiye sacad aynu soo dhoweynayno guddoomiyaha cusub ee xisbiga kulmiye maxamuud aynu soo dhoweynayno oo maanta halkan xilkagu kulo kala wareegaya wuxuun baynu taataaban doonnaa sagootiskaa sacad iyo dardaaranka aynu maxamuud u jeedinayno insha allah bismillaahi kariim سعد مدو حلكن هيي
ساعدوه كسون تنا قف أخلاق له أو الكره شغدي سكادك قبيلة لهين قف جعليس لهين انتو الحلقة هي سيدا عبنما أو هالكرنما أو حسبه ومدللي أيو ساعد الشالب بإذن الله كريم وقتك يسيكو صوغات إلهي وين واحد كاوحي نقبرنا حلقه واميرتو مالين بقف باهين اياه ساعد وين السقوتينا انتي ومقالة كسو قبطي iyo shaqadii uu soo qabtay iyo xilkasnimadiisii iyo daacadnimadiisii iyo dadisguudkiisii waa mid taariikhda u gelisay maxamuud maanta xil cusub buu yimi waynu la dardaarmaynaa waa nin aan looga baqayn kursigaa maanta uu qabtay waa nin dadkiisa iyo dad wadasho leh kaambeynara ummad fara badani ku xidhan tahay wuxuun baynu kula dardaarmaynaa xilka aad qabatay maanta waa muunad mas-uuliyad baa ku fuushay ummad bay kuu fuushay gobolkii saaxil oo dhan oo majority kulmiyaa ayaad mas-uuliyaddiisii qaaday waxaa lagaa doonayaa halkuu saacad dhigay inaad ka sii qaaddo kartidaadii aad sii labalaabto dadka aad isku waddo intii xisbiga hore u joogtay daryeelkooda iyo wanaaggooda ay kaa soo mahad sheegtaan midho cusubna aad ku soo kordhiso maanta xafladanu waxa weeye waa xaflad xil wareejinay waxaynu kala wareejinaynaa oo labadeennan inan saaxiibkay sacad iyo saaxiibkay maxamuud waa intaasoo waa saaxiibadeen waa inamadeenni xilkuna waa meerto waa qadar oo mid baan saacay halkay mid warxay halkeen loo soo maray sacad maxaa ku dhaco lagu bedelay waxaan ku ilaahay baa bedelay waa qadar qofku waa arsaaq intaasoo aynu wada yaqiinsanaan waxaanaynu ku ducaynaynaa ilaahay meel ka sii sarraysa waa nin aqoon-yahana oo dhalinyaro mustaqbala inuu ilaahay gaadhsiiyo maxamuudna waxaynu ugu ducaynaynaa inuu ilaahay xilkan ku asturo oo halkii uu sacad gaadhsiiyey uu ka sii qaado uu midhaheeda uu sii koriyo aad iyo aad baa aanu idinka mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee u soo ajiibteen inaad nagala soo qayb gashaan xafladda xil wareejinta guddoomiyaha cusub ee xisbilxaakimka talada dalka haya ee kulmiye maxamuud maxamed jaamac iyo guddoomiyihii hore mudane sacad cilmi guuleed madashan xil wareejinta saddex arrimood unbay daaranta u ducaynta guddoomiyihii hore ee xisbiga kulmiye soo dhoweynta iyo ducada waxaa la isagoo tinta guddoomiyihii hore ducada guddoomiyaha cusub maxamuud maxamed jaamac oo runtii ah nin aanu saaxiibo dhow nahnay aqoon-yahana oo haddii aan ku sifeeyo doorkiisii hogaamineed ee ururada bulshada aan ku sifeeyo shakhsiyaddiisa nin camal wanaagsan saddex arrimoodna beri ka ah maxamuud wuxuu beri ka yahay saddex arrimood oo tagadan aanu joogno ee guddoonka xisbiga kulmiye uu qofka bini aadankaah halkan yimaada oo ku fasilmaya saddexdaas waxa weeyaan been ballandaro iyo maxay ahayd toole hunguri halkan kollay hadalkooda kama furna waa iska kulayl waxaan doonayaa guddoomiyihii kulmiye ee hore sacad cilmi guuleed saaxiibkay inaan u sheego ma sagootiyayo waxaan leeyahay soo dhowow waad arkaysaa guddoomiyaashii xisbiga dhammaantoodba waanu joognaa meel kale maanu gelin sida yada ah inaad noola joogto oo aad noola shaqayso waxaan aad halkan u soo kacay inaan salaamo haweenka xisbiga u soo dhintay u soo dadaalay u soo shaqeeyey waan ogahayo reer kulmiyow kolle waynu cabanaynaaye haddana waxaan leeyahay ha loo dhabaradaygo xisbiga waxaa lagu jiraa 50 sannadood
60 sannadood ayaa xisbigan ka noqda ma fiicno maanta meel kala istaagtaa ma jeceliin calan kala qaato ma u malaynaysaa inaan calan kala qaadanayo way dhici kartaa waa siyaasad laakiin waxaan leeyahay warbaalka ha loo dulqaato wuxuu Sacad qabtay iyo intuu xilka hayay aad bay u kala awood badan tahay Sacad muddo yar kooban buu hayay oo 2 sano iyo waxoogaaya adu 3 sano ku dhowdhow wuxuu qabtayna wax halkan maanta inuu ku soo koobi karayno maaha cadceedna Sacadkaasi ma qariyo Sacad wuxuu noo yimi oo uga marxaati kacaya isagoo xusbigu meel liidata jooga runtii meel aan hore u gaadhay iswada haysto la kala fadhiyo ummadii buu isu keenay xisbiga uu walaaleeyay iminkana ma sha Allah tabaaraka Allah maxamed jaamac maxamuud dhagow oo ah dhalinyaradii gobolka saaxil oo aan filaayo halkaas Sacad gaarsiiyay meel ka sii sarreysay inuu gaarsiinayo oo aana filan xisbigu halku maanta taagay inuu kor uga socdo mooyee inuu hoos uga dhaco waxa leeyahay maxamuud ku soo dhawow gobolkaaga saaxil ku soo dhawow dadku jecel ku soo dhawow xilka kulmiye waxaanu kuula shaqayn doonaa insha Allah bismillaahi kariim haddii ilaahay na garansiiyo anana aan taacad kuugu nahay inaanu sidoo ula soo shaqayno gudoomiyayaasha hore ee ka wada horeeyay ee shanta gudoomiye ahaa inaan adigana kuula shaqayn doono dhago waxa leeyahay ilaahay xilka lagu dhiibay ha kugu asturo xisbiga kulmiye xisbi balaaran weeye runaantii sidii ay Sacad ba ula shaqaynaynay ayaanu kula shaqayn doonaa haddii ilaahay ka dhigo marka waxaan leeyahay Sacadna ilaahay meel khayr qabta ha ku geeyo dhagana waxaan leeyahay Allah kugu asturo xilka xisbiga kulmiye xisbi cadaaladda iyo sinnaashaha runaantii ilaaliyo weeye anigu iminka 15 sano xisbiga kulmiye ka mid ahaa marka waxaa leeyahay xisbigu halkii uu haystay inuu ka sii hana qaado mooyaane yaanu inaga nusqaamin hareeraha aynu ka wada taagnaano gudoomiyihii hore ee xisbiga kulmiye ee gobolka saaxil Sacad Cilmi Guuleed oo isaguna xafladaasi ka hadlay ayaa tiriyay waxqabadyadii uu qabsoomay muddadii uu xilkaasi hayay isagoo sidoo kalena soo dhaweeyay gudoomiyaha maanta xilka Allahumma salli ala nabi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ilaahay baa awalan halkan waxaan maanta u joognaa xafladda xil wareejinta oo aan aad ugu faraxsanahay inaan wareejiyo xilkan oo ku wareejiyo gudoomiye maxamuud ilaahay waxaan u mahad celinayaa marka koobaad ilaahay oo ii suurta geliyay oo noo suurta geliyay anaga iyo bahweynta xisbiga kulmiye gobolka saaxil waxqabadkii iyo himiladii aanu doonaynay iyo halkaanu gaarsiinay ilaahay noo suurta geliyay ayaan ilaahay uga mahad celinayaa alxamdulillaah rabbil caalamiin intaa waxaan ku darayaa kolley halkan wixii aan islahaa dhabadee waxa isku fooqsaday mushkiladii laydhka ayaa taagan waa arkaysaanoo laydhkii aanu islahayn ku hadla waa kaasoo wuu bakhtisan yahay ciil kuma qabo oo dareenka dadkii baa dee nala qaba dhibta oo waa kaa dadkiiba dee maxay laydhaantuna haysato waxii aan odhan lahaa waa soo koobayaa halkan waxaan doonayaa 3 qodob oo kaliya inaan ku soo ururiyo wixii aan odhan lahaa mid weeyaane waa mahad celin waxaan u mahad celinayaa marka koobaad ilaahay marka labaad waxaan u mahad celinayaa maamulka sare ee xisbiga kulmiye oo madaxweynuhu garwadeenu yahay iyo gudida fulinta dhammaan waan u mahad celinayaa waxa kale aan u mahad celinayaa bahweyntii xisbiga kulmiye gobolka saaxil ee ila soo shaqaysay sida hagar la'aanta ah ee gobonnimada leh ee xilkasnimada leh ee jacaylka leh ayaan u mahad celinayaa kun goor garabka haweenka garabka dhalinyarada cuqaasha salaadiinta odayaasha gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha golaha deegaanka maxaan idhahdaa maareeye Siciid oo aan aad aan u xusayo maareeye Siciid oo aan aad u xusayo oo sidii uu noola shaqeeyay ee qiimaha iyo qaayaha lahayd marxaati aan ka uga ahay daacadnimadiisa iyo runtiisa iyo dadaalkiisa iyo siduu noola soo shaqeeyay maareeye Siciid kun goor baan aad uga mahad celinayaa
maxamuud maxamed jaamac dhego gudoomiyaha cusub ee xisbiga kulmiye loo soo magacaabay gobolka saaxil ayaa isaguna hadal halkaasi ka soo jeediyay waxa uu dardaaran ku soo jeediyay inaanay waxba u qabsoonayn haddii aan garbaal lala qaban xilkaasi culus ee loo soo magacaabay. waxaan maanta sharafi ah inaan halkan kula wareego gudoomiyihii xafiiska xisbiga kulmiye ee gobolka saaxil oo xafiis ballaaran oo xukuma 8 degmo ay ka kooban tahay gobolka saaxil waxaan xilka kala wareegayaa walaalkay saaxiibkay Sacad Cilmi Guuleed oo aan leeyahay xisbigii xilkii baa laga nasiyay laakiin xisbigii baa tahay gudoomiyaashii ka horeeyayna oo aad noqonayso gudoomiyihii shanaad ee hore oo afartii kaleba ay nool yihiin marka laga tago Muuse Jaamac oo dhintay Ilaahay u naxariistee inaad garabkayga taagnaato waxa kaloon halkan uga mahadnaqayaa dhammaanba mas'uuliyiinta kala duwan ee xisbiga garabka haweenka garabka dhalinyarta iyo dhammaan mas'uuliyiinta kala duwan ee xisbiga kulmiye gobolka saaxil waxaan u ballan qaadayaa inaan kula shaqeeyo midnimo wadajir iyo isku haynta xisbiga midnimada iyo horumarka waxa kale oo bulshada gobolka saaxil aan leeyahay inaad nagula shaqeysaan xisbi ahaan si niyad samiya waxaan ballan qaadayaa xisbiga kulmiye oo ah aqlabiyadda gobolka saaxil halkii uu joogay inaan ka sii wado oo aanan ka soo daacin ayaan bulshada ee gobolka saaxil u ballan qaadayaa waxaanan idinka codsanayaa inaad nagula shaqeysaan mas'uuliyaddu waa wadar far kaliina fool ma dhaqdo haddaanay la shaqeynin intii iga soo horeysay xisbiga oo aan garbahayga taagnayn haddii aanay si wada jiray la shaqeynin maamulka heer gobol heer degmo iyo dhammaan laamaha dawladda isku duuban oo marka horeba si isku duubni ah u wada shaqeeyo oo ku hogaamiyo gudoomiyaha gobolka saaxil Dr. Axmed Maxamed Xaashi ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka saaxil Dr. Axmed Maxamed Xaashi oo xafladaasi soo afmeeray ayaa sii sabootiyay gudoomiyihii hore ee xisbiga kulmiye gobolka saaxil isla markaana soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub isagoo u ballan qaaday isaga iyo maamulka gobolka iyo ka degmada Berberaba in shaqada culus ee loo igmaday ay la garab gali doonaan dhammaan maayirka maareeyaha dekedaha Soomaaliland gudoomiyayaasha isbedelaya ku xigeenka dhammaan salaadiinta iyo caaqilada iyo dhalinyarada iyo dhammaan bahweynta kulmiye iyo xisbiyahankaba waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib inaan kala soo qayb galo xilka idin kala wareejiyo maanta gudoomiyihii hore iyo gudoomiyaha cusub Maxamuud oo maanta la soo magacaabay waxa weeyaan farxad weyn bay tahay runtii waxa weeyaan niman dhalinyarada isbedelay baa tihiin waa idinka arkayo dhammaan gudoomiyaashii hore ee xisbigu halkaas ay xaadir ku wada yihiin isaguna wuxuu ku biiray bahda xisbiga aan iminka xilka haynin marka intii uu soo shaqeynayna waan hambalyeynaya sidii fiicnay uu soo shaqeeyay dhammaan shaqaalaha iyo magarasa halwadeennada iyo bahweynta xisbigaba aad baan u hambalyeynaya Maxamuud oo iminka hoggaankeedin hayn doona heer gobolna waxaan leeyahay soo dhawow waan ku soo dhaweynaynaa dhammaan dadweynaha xisbiga kulmiye ee gobolka saaxil way kula wada shaqeynayaan waa lagu ballan qaadayaa waa lagula shaqeynayaa xisbiyahan baa tahay oo lagu warwari maayo waxa weeyaan hawshaada nin ka soo baxayaa tahay oo waxyaabaha lagugu doortay in aad maanta halkaa ka sii wado hawsha xisbiga aad iyo aad baad u mahadsantihiin wabilaahi tawfiiq xabad wanaagsan